السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلام دمان أصحابك حرين جنالك كوسو دوادا داوديال maanta waxaan ka hadli doonaa casharkeen imtixaanaha ahay barashada web design qaybteeda ugu horeyso HTML insha allahu tacaala. casharadani aan baraktikeeyo waxaa qofku waxa ku fahmi karaa inuu practicing sameeyo insha allahu tacaala. soo marka meeshan shaqo u baahan tahay hadal u baahno soo marka practicing hadii la sameeyo wixii su'aal qofku waxba cilad baa qabsanayso oo ku soo weydiina laakiin qofka haduusan waxba practicing waxba ma kala ogaa karo. soo marka ardayda waxaan kula talin lahay practicing inay sameeyaan wixii su'aalan inay iga soo weydiiyaan comment insha allahu tacaala. sidoo kale ardayda danaynayso ka qalin jebinaysa jaamacadaha sistemada in laga caabiyo buugaagta sida loo diyaariyo ikane waa laga caabinaa diyaar waayo hayla soo xiriiraan insha allahu tacaala. maanta waxaan ka hadli doonaa weli waxaan ku guda jirnaa basic of HTML. maanta waxaan ka hadli doonaa HTML styles mawduucaasa maanta ka hadli doonaa iyo mawduuca xigo HTML formatting elements. shaqooyinkan waa muhiim insha allahu tacaala. soo marka midaan ugu horeyso insha allahu tacaala waxaan ka bilaabi doonaa maxay tahay inaan isticmaalno styleka waxaa waaye laba nooc oo kala qaybsamaa. mid HTML dhexdiisa aan ku dhex qorayno iyo mid file caadina u sameyno oo style la dhaho HTML-ka aan link ahaan u laakiin maanta anaga midka isticmaalayno waxay tahay koodka dhexdiisa style aan ku dhex isticmaalayno CSS style maadal lahaa jirto oo HTML aysan marnaba kala maarmin ay isku xiran yihiin insha allahu tacaala. iyadana maadadaas gooni u baran doonaa laakiin hadda maanta styleka isticmaali doono koodka cadow u dhex qoran yahay sidaas aad lusaanaysiin attribute style inaan isticmaalno oo anitin ah. sidoo kale background color inaan isticmaalno waxaana waa styles. sidoo kale inaan isticmaalno color oo la siinayo text hal line qoraalkiisa oo la siinayo text waxaa lahay color in la siiyo iyo inaan isticmaalno font family insha allahu tacaala. sidoo kale inaan isticmaalno font size cabirka farta inaan weynino. sidoo kale inaan isticmaalno use text align text element inaan isticmaalno qoraalkeena inaan marbo left right center waxaa la text alignment center hadii la gaarsiiyo waxyaabahaas dhan practice-kooda waan qaban doonaa. laakiin waxaa ogaatay waxaan practice markaas mas'alada waxaa jira application qofka ma aduusan computer haysan application waxaa jiraan oo editing-ka lagu isticmaalo oo browser-ka lagala soo dego amba play store-ka amba app store-ka waxaa isticmaalaysid waa kala soo degaysaa HTML editor haddaa dhahdo wuu kuu soo qabanaa. sidoo kale waxaa maanta baran doonaa insha allahu tacaala HTML formatting element. shaqooyinkaa qaban doonana waxaa kamid a waxyaabahan waa idil oo meesha loo yaalo. formatting elementiska waxaa lagu design gareeya special textiga waxyaabahan dhan loo isticmaalaa markii qoraal la joogo la isticmaala. hadda website markaad booqato waxyaaba qaar waxaa arkaysaa meelaha ganacsigoo kale waxaad leeyahay shaygan $10 oo ahayd discountia la sameeyey $10 lama tirin xariijina la mariyey redna waa la kor saaray guduud mid kale cagaar ah la mariyay isagana $8 waaye. marka waxyaabahaasoo kale ay qabtaan shaqooyinkan insha allahu tacaala qaar kamid ah waan arki doonaa. hadda mid ugu horeyso b sida caadiga way u taagantahay aan aqaan waxay tahay bold waa sida wordkii waxyaabahaas lagu barto. strongy color strongy texting farta inay yeelato like bold iyo kalaban laakiin way ka awas way strongy u dhaw way kasi qoraalka uu kasii weynaana sidii hore. italic text iyadana waxaa farji jiifa inaan qorto. emphasize text iyadana waa qoraalka inaa emphasizing ku sameyso. lamstaan mark text qoraalkaaga inaa qeyb oo color camal inaa kusoo darto sambal sidaad sheyga qiimaha ganacsiyada online markaa rabto sheyga qiimihiisa laga guuro oo kalereeda la saaraa inta badan midka hadda active-kane cagaar baa la saaraa. small text qoraal aad u yar waaye. del text isagana wuxuu ka agdam yahay sidaa midka idii sheegaya dayo kale oo maxaa lahaye waxyaabaha briceka laga guuro iyo briceka looga guuro kale aan loo isticmaala. bricekana laga guuro lama dileed garayn laakiin midka laga guuro oo calaameynaa midka loo guuro kuu soo bandhiga. sidoo kale inserting text iyadana inay qabanaysaa waa labadan waa isku same midkii laga guuro kan ku calaameynaa midkani kan loo guuro hoos kan calaameynaa labadooda ganacsi isku yihiin.
marka sidoo kale waxaa jirto subscript iyo superscript waxay kala yihiin. Subscript waa qoraal markaa qorto oo qoraaladaada wax yar ka hooseeyo. Superscriptna waa qoraaladaada waa qoraal wax yar ka koreeyo. marka idan waxaan practice-inka ku arki doonaa insha Allah taala soo dhawaada. marka waxaan soo kacsanaynaa subject text-ga soo kacsanaynaa insha Allah. waxaan furnaynaa new page kadibna aan u baxsanayno HTML styles shaqooyinkan aan ku qaban doono bilayn oo new version sahaga asaas insha Allah. welcome. haddana waxaan soo kacsan supplement text casharkii shalay aan joogay casharkii shalay aan joognaa summercam marka casharkii shalay aan joognaa summercam sameynaa new page aan furnaynaa bilayn oo new version new page and then control s baalanay automatic waxaan geynaa folderkeen desktop yaalo oo HTML ku qoran. waxaan u baxsanaynaa styles HTML waa extensionka HTML. kadibna waxaa leedahay save. kadibna HTML hadaa qorto HTML hadaa qorto saa ku siinayo waxaa leedahay xogta dhammaystiran oo format HTML saa ku siinayo. title-keena maanta waxaa waaye qorashada styles of HTML. baadiga imaanayna wax walbo waxaa lagu qoraa baadiga lagu qoraa oo raba in la soo bandhigo. insha Allah taala paragraph wax walbo horta meeshan lagu qoran inta badan waxaa lagu soo bandhigaa paragraph. haddii ciba yani heads la isticmaalaa paragraph-keena koowaad aan qaadanaynaa. waxaan qoraynaa kani waa paragraph. okay. sidoo kale waxaa sameynaysaa paragraph soo ceshanayna laakiin wax badan ayaa ka bedelayna insha Allah taala. mid ugu horeysa aan ku bilaawno inaan isticmaalno color ani attribute na isticmaali karno. attribute saa isticmaasho paragraph-ka dhexdiisa gelaysaa style aan qoraysaa. style markaa qorno color-ka waa kala soo qaadanay waxaanay red oo kala dalbanay and then waan soo bixinaa paragraph meesha ka xirma imaanayna waxaan leenahay this text is red. qoraalka waa good then enter. paragraph kala dalbanaynaa waxaa ku qoraysaa haddana this text is blue. then waxaad sameynaysaa paragraph kala soo qaadanaynaa waxaa leedahay this text is a big. qoraalkiisoo kale waa waaweyn insha Allah taala. sida waxaan sameynayna marka paragraph-ka ku laabanayna style aa qoraysaa. style markaa qorto kan oo kale colorkiisa waxaa ka rabnaa blue waa kan. kan oo kale waa font size style aan leedahay font size 50 pixel oo kala siiyana 50 pixel. okay and then waan garanayna insha Allah. sa oran garayso ku sheegay browser right kaliya leedahay open browser. waa kana kani waa paragraph. this is text measure dhigayna waa kana redka ku soo baxay. this is blue kana waa blue this is blue and then this text is a big measure 50 pixel aan qorayni waaye fahmin. marka qaybtaas ugu horeyso attribute qaadana lahay. next maxaan u eegnaa sameyno background color aan sameyno iyo font color text color iyo inaan sameyno background-ga ku ramayna insha Allah taala. paragraph-kan kala noo soo qaado paragraph على this is background color أقارن موقع. so markaas inay style
meeshaan ma haysaa background colorkeena oo kale waxaa ka rabnaa waxaa leenahay oo kale adiga green oo kale iska dhan green okay ayadahay safe adana safe din kusoo bandhigayo saas oo shaqeynaysa insha Allah refresh leedahay ma soo dare background color oo wato green laakiin farta black background nigan isma soo saarayaan waa inaa fartas white ka dhigtaa takasti waa inaa white ka dhigtaa allah mustacaan waxaa kaloo samayn kartaa intaan leenahay haddana waxaa sameynaa takasti color this is takasti color style aan ku darsanaysaa waxaa leedahay waaba colorkeeda waxaa ka dhigaysaa oo kale allah mustacaan red kadibna save and then browserka dan ku laabo fresh ujeeda this color is a red this is a color of red na ka dhigna waaye this color is red meeshaan aan forno and this text color is a red qoraalkan inuu yahay guduud inaan caddeeno idana waa ujeedin fresh leedahay adaana safe soo dhigin inta kusoo bandhiga waa safe leedahay kadibna browserka fresh leedahay insha Allah next waxaa noo xigo labadan hadda waan ka dhamaanay color textina sameynay background inaan isticmaalno font family inaan isticmaalno paragraph cusub aan samaysanayno haddana paragraph leedahay this is font family qoraalkaasaa noogu dhex qoran style leedahay haddana font family waxyaabaha oo banaanta keedaysa selfia oo faraha ugu caasana ka mid tahay naftarkeed sans service inta badan iyadana sidoo kale waa faraha ugu badan la isticmaala ka mid tahay safe aan leenahay browserka kulaabane fresh sani taal qoraalka baatana this is font family next maxaa noo xigo font size inaan isticmaalno farta inaan cabir siino insha allahu tacaala paragraphkan aan soo qaadanay hadduu ilaahay wadno gaarsiiyo farta naftarkeeda inaan cabir siino waxaa leedahay this is font size paragraphkan kusoo laabanaysaa style font size waa watanaa font sizekeen oo kale waxaan ka dhigaynaa 100 pixel oo far aad weyn 100 pixel insha allahu tacaala shirada ardayda practice inaa sameyso soo majeed this is font style waxaan dhan way kaweyntaa sababto 100 pixel aan siinay next maxaa noo text alignment center qoraalkan inaan bartamaha gey karno wadaal mustacaan paragraph kale aan samaysano this is text alignment tbs center ee left iyo wuxuu yahay markaas kadib ay noo taalaa paragraphka kusoo laabanay stylekan css ka isticmaalano horaan iguu sheegay koodka dhexdiisaan ku dhex isticmaalayna laakiin waxaa jirto css style wax loo oo maado gooni oo la bartay oo haddana waxaa sameyn kartaa inaad sameyn karto linki aan inaad kusoo heri karta file kala kasoo dhige saasaa sameyn karta insha allah hadda waxaa sameyn rabnaa text alignment wareysa text alignment center waa tan automatic iyada meesha noo taalo aaleenoo kale center noogey intibna safe aa leedahay bartamaha inuu noo geeyo rabnaa insha allah centerka inuu noo geeyo qoraalkaas oo noogu soo daro hoos jira waa kana this is text alignment center hoos jira korna keeno waaye sorry kan haddii laga fiiro weyn waxaa waa cidhi badan oo madka fiiro weyn soo gadag
Eastcoast Alignment Center. عندنا حالات فريش then فريش هاي كلامنا ما شاء الله حال ذات خير والله ها حق سرير من الزراعة بصوم من الأشجار يا مكورة ولا ميجو سنة منها بلمي ما هاي ما شاء الله سوري ساعبت حروة كان مشكل القفع الصبح كذا مركا فريش علينا هاي قرار باكنا this is text alignment center كسمية سان قرار كسعدي كرنا left to right هذا هاي علينا lefty ماشان center كان بدلنا حالنا إذا كان كبدلنا safe and second كمان إن شاء الله أنا سميد this is alignment center lefty مكانين right أدنى السلامشان left جاو حكم بدليسا right أريب بدليسا أدنى على هذا safe كدبني فريش هوجي how كاس يبقي this is alignment center سمجد سمركا text alignment سو شبه إذن هو سداس إن شاء الله تعالى وحاكلو نحطه HTML formatting element أيضا برنينا إن وحيابها تصبرنا خروة وين وجران هذا هنا سمعنا بالي فرتنا وين كدقنا سمعنا كدبنه strong إذن هنا استعمال strong بالي من ضمن فرقات إنتان كاركدونا دولي نبدو نقرسي إن شاء الله إن دولي نبدو نقرسي كوانو كله بعشرة بالله أوكي أمبو كومنت مسكسار مسكداك بركة في الأسواق هذا إن شاء الله this is ball text qoraalka waxaa ka rabnaa inuu aad fartiisa waaweyn style ayaa leedahay amba style ma ball bis waa waxa rabno paragraphka banaankiisa furaysaa b bisa ku qoraysaa meesha ka xirma imaysa dane video soo xiraysaa sidaas uu ogyahay ball qoraalkaaga fresh leedahay wixii bedel arka insha Allah soo mije waxaa ku soo hornay qoraalkeena muxuu ahay this is body text waa mid ugu horay weli bodigena this is body text korojana and scroll karo kana this is body text waa qoraalkeen waa waaweyn and iyadoo dan waxaa kusii xijinaynaa strong idane paragraphka mujeda qoraalka meesha ku qoraya ku qoraysa kuwan dhaxdood style ma aan kuwan xalay waa strong ki waxa rabno strong marka aad waa xiriisa automatic saas xiray meeshana ku qoraysa marka this is strong text this is strong ergas dan bashaba dream strong text and this safe strong bold waxay kala duwan indina kala arkaysan and strong waa kana waa full bolding waa kana xogaa daciif yara ku jiro marka farqigaas u dhaxeeyo next waxaan noo xigay insha Allah taala italic fartina ka dhigno jiif qofkii oo word ka soo waxaan uu ka saab and paragraph kala soo qaado italic idane meeshan angala furaysa ayaa leedahay enter automatic san furayo this is italic text this is italic text safe ayaa leedahay and the fresh browserka mujeda this is italic text waatana jijif waa meesha aan calaamiyo waay Allah musta'an waxaa kaloo inoo xigto inaan ogaano emphasize text idana waa like this paragraph ayaa furaysa wax walbo space wax yar leedahay soo ka qaldoomin em aan loo soo gashan emphasize this is emphasize text Allah musta'an idana waa taa waxyaabaan practicing ku fududanaysa practicing badan sameyso waa wax badan aad fahmaysaa marka qoraalka typing aan baratana waa muhiim and marka customer ugu muhiimsan waxyaabaan kala kamid ah inaan business-ka waxa la inaan business-ka marka fiiriso price laga bedelo kala waxyaabaas qole ay ka hadlayaan waxyaabahan ugu dambeeyaan marka kasta signa soo shaqaysan fiirino sambal ka soo qaba paragraph aan fornayna paragraph ka maxalena oo kale
and iPhone-ka qiimihiisa waa dhexe. kadibna maxaa sameynaa Mac aa sameynaa Mac ujeedaa Mac waxaan leenahay oo kale amba qiimihiis ma kalarkiisa oo kale iPhone-ka kalarkiisa waa blue oo kale inta dhane banaanka imaahayna bluegaas qaadamay wuxuu qaadanaa black oo kale. marka bluega wuxuu ku sameynaa wuu ku calaameynaa soo faham waxaa u baahan tahay ayuu ku calaameynaa waxyaabaa u baahan tahay iPhone-ka kalarkiisu waa blue black naftirkeeda waa tii kartaa ama black waa dhihi kartaa soo marka laakiin danta laga leeyahay meesha xataa maadaama laba kalar oo kala meeshaas la taalo waxaa ogaataa inaad isku qaldin oo blue inuu yahay sidaas oo kale ka caawinaysa insha allahu tacaala. waxaa kaloo noo xigo small text oo dareemi kartin waa qoraal caadi iska yar this small text waa qoraal iska caadi oo asigana iska saab isma baleemo this is small text and then save aa leedahay asigana qaabka kusoo baxayo waa tahay this is small text oo qoraal iidana qoraalada kale ka daciifsan bimacnaa kana yar. delete text qoraal hore oo la delete garay sida price-kan ii sheegay oo kale waxaa waa la delete garay laakiin meesha lagama tirin price-ka kusoo waa meesha dhow iidana sida u qoran tahay waatana waxaan leedahay paragraph this is delete text waxaa sameynaysaa oo kale del aa leedahay del aa delete loo soo gaabiyaa. waxaa kaloo leedahay sample allah mustacaan 15 intana waxaa ku qornaysa $15 and then save and then fresh meesha wixii dhici doon arag okay spacekan kala bixin kuwan save meeshaan muxuu sameeyey qiimihii price-ka 15 lama tirin meeshuu ku yaala laakiin waxay ku cadaynaysaa inaan la isticmaalin laakiin midda hadda just active uu yahay $20 laakiin 15 kadib mar hadda laga maray online bimacnaa price kasta waa laga guuray waa lagis. waxaa kaloo inoo xigto insert text kii hadda laga guuray kanna waxay sameynaya insertin hoose kaa calaameynaysa islaada qoraalkan isla asiga la qaadanayna isla fiir isla qoraalkan ku yeesanayna bastian leenahay meeshan oo maxaa la dhahay 20gan waxaan geliyana bis inis wax kale ma geliyana 20gan oo soo inistinga dhaxaysa ma geli inistinga ma sameynaysa insertiga hoose nooga xariiqaysa bimacnaa waxay cadaynaysaa inuu price active-ka inuu midkaas yahay mujeedadu kan waxay samaysay dhaxday ka marisay in laga guuray kana midka active justana hoose ka xariiqtay online ee hoose ugu samaysay line bay hoose ugu xariiqnay starting-ka waxyaabay ugu duwan tahay delete waa sidaas. waxaa kaloo jirto subscript iyo superscript oo cashiradan ugu dambeeyaan subscript marka idin sheego waxay kula dabiyiin horta waxa waaye B4 ben iyo B4 book markii shaqada la qabanayo kan qoraalkiisa kor oo aada kan qoraalkiisa hoos oo aada marka baan garanayna arkaysa insha Allah. soo marka waxaa sameynaysaa sample qoraal min soo qaad aa leedahay this is subscript soo marka waxaa sameynaya inta imaanaysaa paragraphka kusoo sugo subscript waa xiraysaa dan meesha ka dhamaad paragraphka imaanay waa xiraysaa automatic and then waxaa leedahay save soo mjeed waxaa kaloo kuu saartay superscript waa bilcagsigeed waa idan superscript
superscript amba sugo xaalada qoraal inta kormaysana this is la soo qaado bas mid istaan oo kale banaankan ka keen subscript aan dhaxdan iska jirtaa sala qoraalkan wax ka bedelina labadood markaas agyaalina fahmi kartaa waxa way kala duwan wax yar kala duwan this is superscript superscript meeshan oo kale bida b for pancake b for pen b for block so markaad save markaan aan fiir meesha uu xidhiidh doono insha Allah taala kan rasmi this is ergan this is markuu qoro fiir qoraalka maxaa ku dhacay hoos u dhacay soo jid hala subscript kan rasmi this is markuu yiri qoraalkiisa ma hoos mi kor u kacay marka superscript iyo subscript sidaas oo kala duwan saaxiibayaal marka cashirka aad buu u dheeraadeen oo video u dheeraad maro insha Allah taala practice la sameeyo wixii su'aal comment-iga noo balanay. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.